السلام عليكم أصحاب تقاليد أمد الصوماليات ميل والبادوني كجوبتان وافرتون لكي ما شاء الله وحان أنفلايا إن نقد قبتان أنا جنا سيدو كله سو نقد بناكسن أنا عافمات قبنا ما شاء الله والله بلا واجي بريبو ولا حاجرو ضد باساس كجد بتجي تمام والله بالله إلهي وأمتان كرقة وحنا مقل الجرا أضيع هبرت لسار لكن هذا قبلي يا بالسعر بقى الصباح والبق جبر كل جن جبر أنت كل جن كسان على ياله كان على ياله بابا وروح إني شيء جاي قبلين الصومالية ذو ضدك إسكو عيب أستر الحياتين ضدك وحياتين وما عرفتي أو تنهدين من عيو تنكلنا كقبطه tan haday wax lagu sameeyo tan ka qabata laakiin hadaa idin kale isku daba dhigantihiin waa laga fiican yahay ma sha Allah waa yaabanaha ku dhaas wax walba markaan soo kacaba social media fiiri aan dhaho ilaa ya alsdaba haasta dhab bismillahir rahmaanir ilaahu qaatumada noo sameey dad Soomaali oo isku daba dhigan adduunyo aakhira isku daba dhigan ما كفكرتين دتك مساكين تو أوارت باهدي إيو هاي صو فلوين كاسيد ساس وبابا ما كفكرتين تأزدبجي تمسين Soomaaliya waxa idin sheegaya saan nolol ma aha dadka masaakiinta baahan garab hala siiyo inta isdabajitamaysiin is caynaysiin ma aragtay faa'iido u leeyahay malaha marka waxa idin sheegaya waxa sayti hal iska daayo saaka xalkayga aboosta waaye aan ku dhahay nin walba murukaas Allah ka qaado nin walba niyadiisa u jecesha Allah u yeelo ma sha Allah waxaan ku dhahay hadda dhawaa magaalada ka imaaday waxyaraan seexday haddaan soo kacay waxaan ku dhahay maxaan isdhahayaa wax maaga dhigine bal hadda waxyar iska duubo waa ka wax kale oo idin sheegay ma laha aniga dadkaasiiti waxa idin leeyahay waa idin waanina bes gabdhaha Soomaaliyeed oo iska daba jiitamaayo marka waxa idin leeyahay Ilaahay yaa idin tuso jidka fiican Allah idin tuso wax kale oo idin sheegay ma laha ma sha Allah asxaabteyda aad idin ku xiisay anigana waa dareemayaa inaad ii xiisteen أيامها نيتي مشغولي أورطي يا يغفرن إلهي وحن جعلها الله يسمعه أنتِ مسعودة محمد مساسة وبتبعين يعني والبنيدي سدر الله ويا رب بضع الله نقول قاعدة ودن كان إلهي نقولها نقول لقى بروحان كده هي عمر حالة إله اسكوب إلى أولادها نوع حفظه نور بماشي لقاها الله كبوكسيو بص يدبل يسيجو أسعتان كده وأبار شيء ودجال شيء ودبات برنامج كده استخدمه مو حيسس دبصار كأجو جكسي وده أركيسا دبل المروية مركز دبل غيري معها إلهي شرطة الله نقطه ما شاء الله وهذا شيء جاي أمد الصوماليات ملول بقى جوكان إن أسكت نوع عيدان إيه مصيبة إيه بلايدان أو سوشيال ميديا saas iskugu ordayso waxaan ku dhahay gaalada yaabanba gaalka sameeyay wuxuu taagan yahay Soomaali saan leh ma aheedeen Soomaali hadaa saan aheedeen ani oga uu taagan gaalki waaya social media mani soo dirlahay soo saasa u qastay saas haka dhigatay alaabi hatta isma dhaysin dadka idinku yaabaya dadka dhan waa yaaban yihiin marka Soomaali leh inay waxaas qasatay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهي نغفر أمدا مركب ما شاء الله قفكي لعاوية قف عاوية وحق الله عاوية ما عرفتي صدقة هدا بحثة تنبعك في عنتها إن هذا شيء مركب قفك صدقة هدا بحثة إلهي درتي سوء بحثة وعافي عن إنه كهرب ما أنت هداد أساس واكم هذا صدقة وحكة مجرته شلت بوأمية ستي مركز صدقنا لقى محل ما فيعنو صدقنا أكلين إسكدافة قفكي أو سوشيال ميديا سو فريستيو
halay caawiyo ummadaas dhan u jeedo halay caawiyo dhahayo waa qof ma aragta oo dhib unbaa meesha soo fariisay qof soo ma jeclo inuu meel soo fariisto dadka halay caawiyo dhaho qof jecel mala laakiin qofkii danta ay ku kalifto oo soo fariisto ilaahay dartiisa ugu caawiyo dhahay wax dhibaato ma laha waa la caawin karaa marka maasha allah mar qofka walaalka haddii la caawiyo ha la iska daayo qof walba siduu uu ma aragtay uu sadaqadiisa u baxsaday ilaahay maalinta aakhire ugu horeysa maalintaasiito insha allah uu barakoobaya marka waxaan leeyahay gabdheena Soomaaliyeed isku dhegdhegantihiin ma fiicno hal iska dhaafo marka waxaan siiba gabdhaha Soomaaliyeed haddana fanaaniin la wada yahay ceeb waa qofka fanaan hadduu yahay waxaa fiican inuu asturnaado marka dadka fanaaniinta ah buuq iyo social media waxaa loo baahan yahay inay qosol iyo heesahooda iyo ugu bartay inay la soo istaagaan marka ma fiicno gabdhahan isku dhegdhegan hada daraad waaba isdhaafeena Farxiyo iyo Nimco haddana ma aqaan waxa isku soo celiyo ilaahay shaydaanka dhaxdaha uga qabto waa gabdho Soomaaliyeed waa gabdho fanaaniin ah waa gabdho ma aragtay Farxiyo waa fanaan horta Nimcana waa jilay marka waxaan leeyahay gabdhahan Soomaaliyeed sharaf iyo karaama leedihiin hal iska daayo macnaha social media caatinta la soo fariisateen ceeb idin ku tahay anaga fanaaniinaan nahay dadkan ay qabsan lahaayaan nahay haddaan fanaaniinta nahay ma fiicno caayda iska daaya dad walaalaad tihiin gabdhahan Soomaaliyeed yani lagu sheekaysan maasha allah wallahi bilaa maalin walba soo gashay gabdho isku dhagan waa ceeb wallahi billahi aadan oga yaaba aniga marka waxaa idin leeyahay gabdhahan Soomaaliyeed adduunkan lama joogaan nin walba waa ka tagay camalkaaga aa kala tagaysaa wanaagaa samaysa wuxuu kaaga horeeya aakhiro haddaa wax samaysa shar haddaa samaysana aakhire kaaga horeysa wax walba camal aa samaysatay yawmal qiyaama lagu weydiinayaa marka qofka bini aadanka ma aragtay khayr leh ha ku shaqeysto oo walaan khayr ku shaqeynaynin oo fanaaniinaan nahay laakiin tan kale ilaahay waajibkiisa inaan gudano una saartay wax ka fiican mala haddaad subaxdii alaseeda la soo fariistid inaad dadka ula hadashid aad dadka waanisid aad ma aragtay oo aad wax khayr leh u sheegtid hataa ajiraa kugu socda laakiin waagii baryooba haddaa caatin leh ku furtid social media intaasoo qalka ku fiirsanayaan wax fiican ma aha gabdhaheena Soomaaliyeed waxaa idinka digayaa iska daaya caaydaanayti ma fiicno maasha allah haddana dad magac ku leh social media tihiin aad iyo aad ay mahadsantihiin maadaama fariinteyda hadday idin soo gaartan waxaa idin leeyahay wanaagaa idin wada xumaan idinma wado oo waa idin dabaqanayaan qof fanaanada ahay marka gabdhaheena fanaaniinta ah social media caayda iskaga daaya qofkii wax idin dhaho hataa gees luuq u galo qofkaas iska dhic laakiin social media oo laga dhigtaba caado naagtii lis dagaalada meesha lasoo istaagayo ma aragtay laga caynayo wax faa'iido ma sumcadaada ku dhumayso waxaan ku dhahay waa la isjiidanayaa ilaa kismaayo waa la isku sii daba dhegan yahay la subax walba subxaanaka yaa cadin ilaahu rabbi raxmaanu ceebteena na astur intii muslim gabarna ceebteeda allaha astur ilaahu shari shaydaanka naga qabo ilaahu ninkii kurbahays kurbada allah ka qaado Soomaali weyney waa idin wada salaamay khayrkaan badino adduunkaan ma la joogaayo waxaan ku dhahay adduunkaanay tibartiyaan ku wada nahay marka nin walba camalkuu samaystaa ka horeeyo qof walba sadaqaduu baxsadana allah maalintii yawmal aakhire ugu horeysaa marka waa kaa Farxiyo kaba yarey fanaanadeeniyey waxaan ku dhahay gabadhaan hadda aa haystin iska daa sadaqadaas siiso ilaahay dartiisa ugu soo aruurisana Farxiyo ilaahay dartiisa ugu keento yawmal aakhire maalintaasaa ka helaysaa ilaahu may ku tumato ilaahu may meel daran ka rido ilaahu may wax kasta ku samayso adiga walaaltinimo waa u danqatay dumarnimo waa u danqatay maasha allah qof dhiig lahaa tahay waad u soo aruuriso waad u keentay alxamdulillah alshukrillah intaasba qof walaalaa laga helaa marka Farxiyo walaalay macaanay ka har dad walaasheen inta aan ku qabsan karno oon fanaaniin isla nahay
كهر ناقتا سيتي صدقدا usoo aruursana ha iska habaabinina dad walaala uga soo aruurso waa u danqatay xag alle ku jirtaa farxiyo intaas ku xir warkaaga abaayo maanta qof walba farxiya saan leeys farxiya ka dhows adiga taa ceeb ku taag war fanaanada tahay oo karti la oo dhig loo qofka u danqata aniga waa ku aqaana ma sha Allah marka farxiyo waxaan codsanayaa abaayo macaanto inaad ma aragta aad ka harto gabadhaas ayaamaha ku dhigan tahay farxiyo karoona gabdhahaanayda qof walba wax ku dhawaata shibka dhahan ku dhahay dhiiga aad leedahay iyo dameerka aad leedahay iyo kartida aad leedahay iyo ma aragta iyo dadka saa ugu damqatay iyo dumarkiisa ugu damqatay qofkii rafaadsan ee qofkii si aad ugu orodido xabadka u timatido u soo dhicisid wax qof walba hadduu saan yahay xag Allah ka helaysaa aqradaada iska siijin wanaaga aad soo qabataha iska haleyn aniga waana iga tahay farxiyo walaalay macaanay fanaanadeeniye waana ku salaamayaa abaa macaantoy social media iska daa social media iska dhaaf yaamahaanaytu murankiina waa bad murankaaga haddana qayladaada iyo gabadha adiina maxaa kala harteen haddana gabadhaanayt waxaa leeyahay qof wal farxiyo maxay ugu dhigantay ilaa waxa ku xanuunka ku haayo waa dareemi karnaa anaga ilaa qof ma aragto wax lagu sameeyay meel cilla kama qaylnaa waa la ogyahay marka farxiyo kaba yaray oo salaam walaashay macaan fanaanadeeniye ilaahay adina khayr ha ku siiyo marka asxaabta qaaliga kulligiin waxaa idinka tagayaa sidaas iyo